arrinteeda ay caalamka oo dhan noqotay waxaan leeyahay ma aha keligeed waxa dhintay waa sax laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmad buu ka leeyahay gabadhaas soomaalida ah ee muslimadda ah in dhiigeedu maanta uu noqdo waxa arrintan qarxiya inuu noqdo oo siyaasiyiintii kashifa oo mas'uuliyaadka kashifa oo dulmiga kashifa oo dhiig badan oo muslim oo daatay kashifa ayaa ilaahay ka leeyahay ee ikraan ma aha keligeed wax dhintay laakiin xikmad baa ilaahay ka leeyahay waxaan leenahay arrintaas waa arrin weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu daba joogo walla inaanay noqonayn arrin ciyaar ah oo lagu kala tago boqolaal culimo ah zuhaad ah mas'uuliin ah wasiirro ah xildhibaano ah meeqaa dhintay dhiiggooda dhulka ku daatay oo aan waxba laga haynin maxaa dhacay xikmadda ma isweydiiseen maanta inuu ilaahay kashifo oo bannaanka soo saaro dilka gabadha yar ee soomaalida ah xikmad baa ka dambaysa waxaan idin xusuusinayaa inay dhacday zamankii nabiga calayhi salaatu wasalaam niman saxaabo ah oo ciidan u diray sida ibn maajah sunankiisa saxiixa lagu wariyay xasan xadiis xasana inay baxeen niman gaalaha bay la dirireen markay la dirireen baa nin markii waranka lagu keenay laba nin baa waranka ku keentay markaasuu markuu waranka arkay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah ninaan waa ka istaagay nin baa ka istaagay markuu saas yiri ninkii kale warankiibu ku kaxayey warankiibu ku kaxayey isagoo laa ilaha illa allah way soo noqdeen qisadii baa nabiga alayhi salaam loo sheegay wuxuu ku yidhi nabigu alayhi salaam ma waxaad dishay isagoo laa ilaha illa allah leh miyaad dishay rasuulka allah wuu ku gabanaa war ma waxaad dishay isagoo laa ilaha illa allah yiri waa sida qisadii usaama oo kale rasuulka allah dambi dhaaf ilaahay ii weydii wuu ka aamusay nabigu alayhi salaam ma waxaad dishay isagoo laa ilaha illa allah yiri miyaad dishay sidii baa dhacday ninkii ayaamo kadib wuu dhintay waa la xabaalay markii la xabaalay ayaa subaxdii waxaa la arkay meedkiiyo bannaanka yaal waxay is yidhaahdeen waxbaa bahal baa qoday waxbaa qoday meel wax kale ku xabaaleen xabaashii bay dheerayeen waa ku celiyeen subaxdii waxay arkeen isagoo bannaanka yaal mar saddexaad ciidan bay dhigeen ilaaliya caawa oo dab halkan ka shita oo bal qabrigan waxa ka dhacaya fiiriya hurdoon baa hadhow qaaday nimankii meydkiiyo bannaanka yaala subaxdii la arkay nabiga calayhi salaam baa loo sheegay wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam dhulka waxaa ku jiray buu yidhi ninkan dad ka shar badan baa dhulka ku jira oo dhulku aqbalaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idin tusayey xurmada uu leeyahay dhiigga muslimku dhiigga muslimku ciyaar maaha gabadha hadda arrinteedu taagan tahay ee dhibka weyn kicisa iyo qadiyadeedu meesha ay marayso aad og tihiin meel cidla ma dhacayso waxay ila tahay dhiiggaas in ilaahay daba socdo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu daba socdanaha cid badbaadin karta ama hor istaagi karta ma jirto xukaamta soomaaliya waxaan leenahay gabadhaas iyo ehelkeedii waxay ramsi u tahay tusaale waxay u tahay malaayiin soomaali oo dhimatay dhulka hoosteeda ku jira bay arrinteedu kaakicinaysaa cadaalad ha lagu xaqo ha la taxqiiqiyo ha la baaro cidday ku caddaatana maxkamadeeda ha la marsiiyo cid hor istaagtaa yay jirin ciddii hor istaagtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inay hor istaagayso ha ogaato waa cid ilaahay la dagaalamaysa cidda hor istaagtaa dhiigga ikraan ma aha dhiigga gabar keliya oo meesha ku dhimatay ma aha oo ma la weysan yahay hadday dhimatana ilaahay ha u naxariistay ma aha waa boqolaal kun oo soomaaliya oo dhiiggoodu maqan yahay bay ramsi u tahay bilowbayna u tahay lacalla inay noqoto meeshii qalbiga soomaalidu ka soo noqon lahayd taasna waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala gabadhaas iyo ehelkeed iyo dadkeeda oynaya cadaalad ha lagu maamulo hana la baaro nebigu calayhi salaatu wasalaam markii laga shafaaco qaaday gabar reer quraysha oo waxaday oo gacanta la rabay in laga gooyo
ودتك ودد وجعلا أتجن وأسامة أتجن وحكويري أتشفع في حد من حدود الله أنت وجهك اسبدلي نبي عليه الصلاة والسلام ورما حد إلهي أياد دونيسا إن كشف عقد وأظهر استكتو ساس درتد يكويري والله نبي عليه الصلاة والسلام كم أنا خصبانين إنه قارتو لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها عدالة المسلم ساسو عدالة الإسلام ككتاب كإلهي اللي يدين ليه النقضة وقلبي إنه أخشوعه تاسوي عدالة قفك وين مجرى قبل النبي محمد بقول كأنت كقول لها هذه ما أنت واحد لها حاشا لله إني حد لكن وتصالح سيد صومالي ترى ويش قال ديوها كوقوسو مركا تاسنا فرين تاس أيام دريا ملاحظ الصومالية وحنا لا يهي إلهي كبقى أو دحدينا إصلاحية نجانا حشوضة أو إلهي كحشوضة أو ضدك أدونك جو كحشوضة وحن دولة ما أهين أو شرف أهين أو مجع نوع أهين أو أدونك نقول قصرنا هالسميننا وحين هوسو سميست عدات سميستنا إلهي سبحانه وتعالى كتابك يسوع النقضة أو علماء يد كتابك إلهي كوكلا بحر أو محكمة إلهي إماذا هدادي دان صوماها فلا تأس على القوم الفاسقين أيائد سبيسا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين اللهم أصلح حكامنا وحكام المسلمين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة لك من حوائج الدنيا والآخرة